badeelaan qaadan jirnay wixii waa naga farabadisay waa naga adkaatay guryihii iyo masaajidkii iyo meel walbaba barakac baan ka nahay gurigaabaa ku noolahay bacad saa u galay ammaanka markaan jecel subaxdii waa dadkan soo caya waxaan ahaa wareer meesha albaabka igu xirmay wareer muslina mar layga furana dee bacdigeenna dee waa ka soo baxaa markaan waxay maraysaa dugsigu inuu go'doomo subaxii markii ardayda loo soo diro quraanka inay soo dhigtaan 12 saac yimaadaan oo subaxnimo waxay ku qaadanaysaa hal saac ama hal saac iyo bar inay ciidda ka qodaan sidii albaabka loo furi lahaa bacaadkaas ilaahay keenay oo musiibada oo aan iska qaadi karin oo aan awood u lahayn oo aan dana kugu maayo dadkii hadda xaari jiray dhabarradii hadda runtii way wada beeleen buush yar baan iska dhistoo iskaga noolahay labadayda gurina waa xabaalmeen muxuu ahaayeen ceelkii ku dhowaana waa xabaalmay ilaahay baan iska baryaynaa ilaahay inuu naga celiyo wax kale aan hadda tabaroo aan haynana male الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر masaajidka ciidda sida ay u saamaysay waxa la sadar muqdis oo almudoono weeye waa sida aad u jeedaan 5 sano baa haddii alla ku raha ciiddaa nagu socotay cabasho badan baan soo gudbinnay ciiddana rabbi baa keeno waa rabbaaniye laakiin waxna taakuleeya oo muslima oo ehela oo noo yimaada oo wax ka qabta ma aanan helin badeelaan qaadan jirnay wixii waa naga farabadisay waa naga adkaatay guryihii iyo masaajidkii iyo meel walbaba barakac baan ka nahay inaan meel cidlahan dhooban nahay waxay arrintu taagan tahay cirno ubadi'in ceello uma qodna yaa muslimiin bay taagan tahay wixii wax noo qaban kara oo muslina waa inay wax noo qabtaan ciiddaas barakac ah oo ceeshii naga kicisay masaajidadii naga kicisay guryihii dumisay waxaan codsanaynaa in wax laga qabto salaadaha nin saas indhaha maryaha u haysta oo indha dabuuqsanaya baa orod ku soo gala orodna uga baxa in laga tagay taagantaa bannaanka maryaha la dhigto waana ciid darteed barkaddii lagu weysaysan jiray oo masaajidka lagu weysaysan jiray waad aragtaan ceelkii iyo baraagtii iyo guryihii waddankii ku dhowaa indhihii indhaad u jeeddaan waa xabaalmeen بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka mid ahay macallimiinta muddada dheer ka dhigaysay quraanka magaalada Dhinowda dugsigan waxaan dhigayay muddo ka badan muddo 15 sano ah baan hayay oo dhigayay waxaa ku soo siyaaday sanadyadan dambe ciid siyaada ah baa ku soo siyaaday sanadyadan dambe waxaa ku soo siyaaday ciid siyaada oo sanadba sanad ka soo badanaysay
hadda markaan waxay maraysaa dugsigu inuu go'doomo subaxii markii ardayda loo soo diro qur-aanka inay soo dhigtaan hadday 12 saac yimaadaan oo subaxnimo waxay ku qaadanaysaa hal saac ama hal saac iyo bar inay ciidda ka qodaan sidii albaabka loo furi lahaa markaa kabacdina ay qur-aanka dhigtaan ayagoo weliba xiiqsan oo ku daalay ciidda ay gurahayeen markaa kabacdi dhibaato badan baa ciidda ku qabnaa marka ay u soo socdaan oo kale ardayga wuxuu ku imaanayaa isagoo rafaaday oo ciiddii indhaha ka garaacday oo tacbaansan buu imaanayaa galabtii markaa fasaxday sidii oo kale intaan dhiganayno albaabkana way soo xiraysaa ciiddu dushana way ka soo daadanaysaa oo laamiyeeri xataa way celin waaye waxaa moodaa in soomaalidu ay naga jiifto oo cidna wax noo qabatay aysan jirin beledweyne ayaan dhexdaana waa ognahay oo webiga ku fatahay soomaali baa u gurmatay culummadii baa u hadashay oo u gurmatay annaga culumma nooma hadlin diyaaradaa loogu soo gurmaday xataa annaga wax noo soo gurmaday ma hayno waxaan kaloo idiin sheegayaa ciidda dhan haddii laga fiirsho waa waxqabadkeeda waa sahlan yahay wax waa laga qaban karaa oo waa wax laga qaban karo annagu hadda taakulayn iyo maalgelin baan u weyna maahane wax waa ka qaban lahayn waxaana ku garanaysaan in wax laga qaban karo annaguba subax kasta haddaanan iska gurin ciidda waa horaan ka guuri lahayn meesha waxaan samaynaa iskuulka waa ka guranaa dugsiga qur-aanka waa ka guranaa isbitaalka waa ka gurnaa masaajidka waa ka gurnaa salaada intaan la gaarin haddii aanan saas yeelinna mid kasta isbuuc gudihiisa loogu guri lahaa MCAdkan waa ujeedaa 2 sano haddan ba shaqayn waa u xiraa qolyo gacanta ku hayn jiray baa waqtigooda ka dhacay waa ka tageen wax dambana weli uma soo bixin intaa wuu naga xiraa iyadoo meeshaan bulsho badan ay ku xeeran tahay oo magaalada dadka jooga aad aragteen meeshaanoo quudintii iyo heeltigiiba looga gargaari jiray oo umulisooyinka caruuraha kuwa nafaqadarrada waxaasoo dhan wax looga qaban jiray way ka istaageen 2 sano horta xool lagama qaban umulisadu xilligaa hadda la joogo markii loo baahdo ama dhiig ku shubid ay noqoto ama ilmuhu nafaqadarran ay noqdaan oo ay macnaha emergency u baahdaan waxaa noogu sokaysa degmada Jariibe tan labaad oo noogu xigtana waa Gaalkacyo waana dhulka aragteen oo hadda aragtay u dhibtamaya baanu marsiinay qofka iyadoo xaaladoodu ay garaab tahay isbitaalka waa u jeedaan indhihiina aad ku aragtaan derbigiisa waa aragtaan ablaabadii waa aragtaan awal intuu asagu noo fiyoobaa rajaan ugu jirto waa dhawaaqayno ama federaal ha noqoto ama hay'ad ha noqoto ama maamul ha noqoto ama jaariyadaha tolka ha noqoto waxaan islahayn qola baad helaysaan haddii ilaahay ku caawin doonto waxaa isku fuuqsaday waxayba kufaan xadun ciidaasaa isku fuuqsatay gebigiisaba waa aasamay waa ujeedaa haatan markaan alaabo yaryar baa ku aasanoo qalabkii lagu shaqayn jiray iyo wax daawo haraaya ku jiray waa tegay aan waa kaas waa laga soo saari waayey waa indhihiina ku aragtiin ishaa macalinaydii ah saasuu u xabaalmay wuxuu u baahan yahay hawl badan marka koobaad waan asagina waa jajaba waa burburo ciiddu saasay haddana u gelgoynaysaa hadda wuxuu rabaa in ciiddaas laga qaado oo hawl ciidda markii laga dhameeyana asagii baa dhismo u baahan dacal iyo daba gebigiisa dhammaan la dhisuu rabaa dadka xanuunsada waxaa loo dhigaa ama Jariiman baa nuugu sokaysa meel loo dhigo iyo Gaalkacyo baa ugu shishaysa baabuurtu waa qaali baabuurka ugu yar ama 500 ama 600 buu maraya kan ugu badan 700 baa lagu kireeyaa hadda dhow baa 2 gabdhood la qaaday baabuurkii 700 baa lagu kireeyaa isagoo xataa wadada ay dhib ku noqoto mari waayey bacaad adligeed dadka kalena waxaa loo dhigaa Jariiman oo hadda rooroon midda kale talaalka caruurta waxaan ka heli jirnay isbitaalka waa weynay dhinacaan buu nooga imaan jiray Afbarwaaqo iyo meelahan bay noo tiilay oo haanta iyo alaabta aan ka soo qaadan jirnay motorka shidna hadda waxaan u aadnaa Jariiman ama Garaacad baa ka helnaa u doonaa baabuur baa u kireysanaa meeshaan horta waad arkaysaan oo haddaase aan ka hadlayo way xabaalantay hadday masaajid tahay hadday guryo tahay hadday xaafad tahay hadday dugsi quraan tahay inta way xabaalantay maadaama hadda markaan hadlayo meeshaan ka hadlayo hooyo xaawis hel oo aniga hadda dhinac iga fadhido hadda mataqaana idiin muuqata waa tabcaadkaasi waxa weeye subax walba habeen walba badeelkaasaa guriga iridiisa ciidda looga xeeraa oo haddii la kugu mahayo
ciiddaasina intay hadda ayna saamaysay adugu maxaan u malaynayaa adugu intii 5 sano 6 sano saasay ciiddaasi ay waddanka ku ahayd ilaahay mahadiisa haatana waxa weeye waa arrin aad iyo aad mucjiso u ah meesha qof